puntland sooyaal dowladeed bay lahayd oo kasoo bilowday 98 oo ahaa dhismaha dowladda puntland dib u heshiisiin bulsho dhismaha hay-adaha dowladda iyo ka qayb qaadashada soo celinta dhismaha dowladda Soomaaliya. Intaas waa sooyaalka puntland tamaanta aan joogno. sooyaalkaasi runtii wuxuu noqday mid lagu soo caalamaalay, abuuray deganaansho, abuuray dowladnimo, dheliyey kobac tacliimeed, mid dhaqaale iyo mid horumar intaba. sooyaalkaas hadduusan jiri lahayn maanta way adkaan lahayd waxa aan rabno inaan qabanno. Marka inay isku xiran tahay wixii la soo maro taariikha, meesha maanta la joogo iyo meesha la hiigsan. meesha aan maanta joogno marka sooyaalkaas uu dhismayey kuma soo dhismin cayaar, wuxuu ku soo dhismay dadaal fara badan, waxaa hareereynaya caqabado, waxaa ku baxay naf, waxaa ku baxay maal, waxaa ku baxay maskax fara badan oo aada loo shiilay oo runtii sababtay jiritaanka puntland ay maanta haysaneen. haddaan la helin amni sax ah oo sharci ku shaqeynaya oo gacan dowladeed ku jira, waxaa ka dhalan kara waynu garan karnaa. waxaa marar badan cabsi laga muujiyaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho. waxa ugu weyn waxa weeye maaha dadka inaysan rabin, mana aha in farsamo ahaan la qaban karin. waxa ugu weyn waa dhinaca amniga. maxaa yeelay dowladda dalkeeda amnigeeda sugi karin markay tiraahdo qof iyo cod aan qabanayna been bay sheegaysaa. sababtaasaa mar walba dad banaantan runtii dhibka weyn noo geysanaysa keenaysa. waxaan isleeyahay waxa oo u baahan iyadan inaan xoojinno ku dhaqanka luqadda Soomaaliga. hadda bangiga la ganaaxay waa sahlan yahay, lacag waa iska haystaa, waa iska bixin karaa, laakiin dadka kaleeto oo lacagtoodu ay ku ciriiriga tahay waxaan rabaa inay aada uga fiirsadaan. waxaan u baahannahay luqaddeena inaan kordhino, waxaan u baahannahay inaan ku dhaqanno. nimaan afkiisa iyo dhaqankiisa horumarin cid kale uma horumarinayso. waxaa hadda luqadda ingiriisiga iyo carabiga iyo luqadahaas nool dad baa ka shaqeeyey. waad ogtihiin carabigana waxaa u saaciiday maadaama diintii ay ku dhignayd oo diintu ay noqotay diintii caalamka ilaahay ugu talagalay. fididdii diinta ayaa waxay tagtay dalal badan oo hadda carab la yihahdo carab ma ahaan jirin. ya mustacrab baa la waa la carabeeyey. syria iyo lubnaan iyo jordan iyo waxaa aragteen algeria iyo masar iyo ma ahayn carab, ma ahayn afkooda, laakiin diintii baa carabaysay. ingiriiskana waxaa la yidhi waa boqortooyadii aan dhici jirin Soomaaliya, caalamku dhan bay gumaysatay iyadoo. labadaas luqadood waxa saaciday waxa weeye dadkeeda ayaa saaciday. luqadda Soomaaliga waxaan rabnaa maadaama ay noqotay luqadda inay noqoto luqadda geeska Afrika. maxaa yeelay geeska Afrika dalalka Ethiopia, Kenya, Djibouti, Soomaaliya intaasba waxaa looga hadlaa qaar wadamada kaleeto luqado kale waa leeyihiin, laakiin Soomaali ayaa ku joogta. marka luqadda geeska Afrika way noqon kartaa sida luqadda Sawaaxiliga ay u tahay oo luqadda bariga Afrika. soo saas ma wax diidaya ma leh. waxaan rajaynayaa iyadana inaan insha Allah waqti gelino oo ku darno waxyaabaha aan rabno inaan hiigsano. dabcan xukuumaddan waxay lahayd tayeyn iyo tiigs. maalin dhaweed waxaan kusoo kordhinay 2 slogan oo ah midnimo iyo nabad. maalin dhaweedan hadda waxaa kii hore xogaa yar noo hakay, laakiin hadda markii barnaamijka halka laga sheegayay waxaan ka arkay barnaamijka isku dhafka wax noocaas soo samayn. marka hadda waxaa igu soo dhacday 2 slogan aan isku dhaf u samayno si kiina u istaagin kan kalena uu socdo. marka waan rajaynayaa horumarkaas socdo inuu sii baraaro.
adkaynta midnimada iyo nabaduna ay awlawiyaadka muhiimka ay noqdaan oo aan mar walba ku naaloonayno. haddaynan midnimo helin nabad ma helayno, haddaynan nabad helin horumar ma helayno. noloshu way isku xiran tahay. hay-adaha dowladda ee halka jooga dhammaantood waxaan farayaa inay ka shaqeeyaan midnimada Puntland, nabadeeda, horumarkeeda, caqabadaha jira si wada jira dowlad iyo shacab iyo waxgarad uga soo jeesadaan. dadka raba in ay mararka qaarkood wiiqaan midnimada iyo nabadana aan isku si ula xaajoonno u aragno. waan rajaynayaa insha allahu tacaala in Puntland oo nabadeeda waarta oo midnimadeedu fiican tahay oo horumarkeedu uusan joogsan iyo Soomaaliya oo mid ah inaan ilaahay idankiis aragno waqti aan fogeyn. waan rajaynaynaa ilaahay idankiis. waxaa loo baahan yahay dadku inay mar walba khayrka iyo wanaagga ay fishaan oo aysan noqon dad mar walba sharka iyo waxyaabaha khaldan uun xoogga saara. insha allah waxaan isu dardaarmaynaa inaan wanaagga ka wada shaqeyno, horumarka aan hiigsano. duruufaha adag ee maraynana waxaan rajaynaynaa inaan ka gudbi doono.